maxaad kala socotaa cariyo wiirta ka dhex taagan xukuumadda Soomaaliland jabhadda buurta gacan libaax iyo asxaabta mucaaradka ah ciidan boorisa oo ilaa 30 nina ilaa 35 nina oo magaalo labada go'ood u kala socdo goda yar ku socda ayay dhexda u galay ciidanku waxba kama oogin iyagoo xoogan oo tira xoogana ayay dhexda u galay 9 askari bay direen 17 askarina way dhaawaceen والبيت أفكار وسانك هي كيس كيس على عبد الله قلي حاجة شفتها وارش كده البنت mindi kumud kaafiye kala dheeri ayay u muuqataa sidii xal nabadeed looga gaari lahaa damacyada badan ee doonista kursiga madaxtinimo ee Soomaaliland musharaxiin hadda waxa uu taagan yahay kursi dhiig tafaha loo suray doonistiisa diyaar uma yihi anigu shakhsiyan kursiga aan doonayay madaxweynaha waxa igala qiimo weyn dhiigga hal muwaadin oo daata waxaan adkaynayaa inaan dhaqdhaqaaq dambe aanu dhicin ciidanka shacabka huwaysanna waxaan ugu baaqayaa inay qoryahana iska dhigaan dhulka dhigaan jabhadda gacan libaaxna waxa ay taagan tahay muuse iyo xukuumaddiisa ayaanu dalka ka xoreynaynaa xukuumadda Soomaaliland iyana waxay xal u aragtay in gacan libaax la dulgeeyo ciidan xoogan xilli la ascaanoodna ay weli isku hor fadhiyaan xoogaga ciidanka Soomaaliland iyo jabhadda SSC dhanka kale ururada Soomaaliland ayaa iyana diyaar u ah doorasho ururo oo qabsoonta halka xusbiga wadan iyo beesha musharaxiin doonistoodu tahay doorasho madaxtooyo oo kaliya musharaxiin waxa uu safar dhulka ah ku gaalabixiyay gobolada bariga Soomaaliland isagoo shirar joogto ah la yeeshay odayaasha deegaanada uu ka soo jeedo sida ilo xogagaalahay noo xaqiijiyeen shirarkaasi ayaa daarnaa qaabkii doorashada ururada iyo Soomaaliland dunta loo kala dooran lahaa balse natiijada ka soo baxday ilaa haatan lama oga inkasta oo soo laabashada hal maalin kadib safarka musharaxiin mudaharaado ka dhaceen qaar ka mid ah gobolada Soomaaliland dagaal qaraarna ciidanka Soomaaliland iyo jabhadda oo fadheen ku dhexmaray buurta gacan libaax halkaas oo tiro dhimasho iyo dhaawac badan ka dhashay balse arrinta argagaxa abuurtay ee bulshadu aadka u hadal hayso ayaa ah dilka sarkaal meydkiisa cag wajiga ay ka saartay jabhadda buurta gacan libaax kaasi oo ka soo jeeda beelaha darafyada ama laga tirada badan yahay ee birmigeydada Soomaaliland ah kaasi oo kaaga sii darane muuqaal laga duubay kolkii la dilay dadka ayaa isweydiinaya jabhadda buurta gacan libaax magacal ayay dagaal kula jirtaa mise cadow duulaan ku soo qaaday si kastaba ha ahaatee muranka siyaasiga ah ee Soomaaliland ayaanay ka muuqan talo odaytinimo tudaale iyo tallaabo xal lagu gaari doono wixii wararka ka soo kordha halkan kala soco